بسم الله. وأنا قاعد نودون عمر محمد علي odayaasha Gariley kamid ah oo maxay ahayd deegaanka Gariley odayaasheeda kamid ah meeshan waxaan kor taaganahay dad meeyda oo lagu soo laayay meesha la yiraahdo diif oo ay soo laayeen ciidamada Axmed Madoobe waxa weeye dadku waa dad Soomaali ah waa dad Islaam ah waa dad walaal ah deegaanka iyo dalka waa la wada degan yahay umadu dalka waa ka dhaxaya daaqa waa ka dhaxaya dalkuna waa wada degan dalkana Ilaahay baa iskale qof shakhsi iyo qolo bahalki midna maraha waxa weeye meel walba aan isdhexdaasay meeshaan joogna hadda cid walba cid ayada u nasab sheegato oo meesha iyada degan oo dadka laynayso dadkeeda hadda waa nala joogaa meeshaan uu joogaa qaburuhu nala xabaalahaya dadkaas asaga anagu dad walaalo oo daris oo isla dhashay oo isku bahalkaan sunnahay meeshaas ana dadka lagu soo laayay dadka waa la laynhayaa waa la barakicinayaa waa la soo hado alla ku diiday la didinhayaa oo dadkii daaqi iyo dalkii loo diidayaa xoolihii baa la didinhayaa la guulaabinayaa gabdhihii baa la kubsanayaa haddana gabar baa darxad lagu kubsaday oo lagu hayay lagu faraxmeeyo dhibaato fool xun iyo bahalkii loo geystay kuba hadda la leeyahay waa la dilo raggan meesha hadda la keeno meydkeeda labada nin oo la keenay gabar baa meesha iyada isku dhimatay lagu aasay dhibaatadaas meesha ka dhacday dadka dilayna waa niman maxay ahayd ogaadeen Maxamed Sugeera oo reediif iyo dalka deegaanka ahaa waa dadka isla dhashay ahaa oo dadka waxayay ciidamada Axmed Madoobe ana gacanta lahaayo hadda dadka laayay ciidamada tuutaysan oo saldhigyadii iyo bahalkii ka soo kacay oo loo leeyahay waa ciidamadii Jubbaland oo loo leeyahay waa ciidamadii dalka la leeyahay qabiil baa loogu bedelay dadkii baa lagu laynaya lagu xasuuqaya caruurihii iyo reerihii iyo maatadii dadkii dhibaatadaas lagu hayaa adduunweynaha iyo dadka iyo Soomaalida waxaan u sheegaynaa colaada ay ka wadaan nimankaas iyo ninkaas ciidamadiisa iyo maxay howlaha uu ka wado waa dhibaato maaragtay dalkii Jubbaland iyo bahalkii midna aan nafacayn waa mid Jubbaland ayna ku midoobi karin oo ayna walaalo ku ahaan karin oo Jubbaland ku wada ahaan karin waxa weeye waa dhibaato uu ninkaas arada ka abuuraya ama ka waday horeyna waa u wado Axmed Madoobe maalinku soo galay 10 iyo dhowr sano meeshaan joogay dhibaatadaas anagu nugu haysay haddaan nahay beesha side dhibaato fara badan iyo colaad fara badan iyo xasuuq fara badan oo intaas anagu aan dul qaadanaynay oo wax lahayn maxay ahayd iska samreynay baa meeshii ka dhacday waxaad moodaa maanta samirka inuu iska soo yaryaraan hayo inuu dadkii maaragtay colaadda ay istaagi lahayd hadda ka sii darayso iyadoo aad moodaa hadda inay farsas kale iyo siyaasad kale aad moodaysa siyaasadda in si kale loo bedelay dadku hadduu maalin walba la yiraahdo hebel baa dhintay iyo hebel baa la dilay waxa weeye waa ka caaya dadkii waxa weeye arrintaas jirto Soomaali weyn baan u sheegaynaa Jubbaland oo dhan baan u sheegaynaa dawladda federaalka u sheegaynaa deegaanka oo dhan baan u sheegaynaa ummadaan u sheegaynaa darisadaan u sheegaynaa arrintaas dadka muslimiinta oo dhan baan u sheegaynaa meeshaas inay dhibaato ka jirto xasuuq ka jiro maalin walbana dhacdo dadkii annaga aan maalin walba hortaagnayn oo lahayn waxaan waa wax yar iyo waa dhacdo bahalkii aan maanta ay qiira xun iyo dhibaato ka muuqata idin sheegaynaa annaga waxaad moodaa arrintaas aad iyo aad xogaad maaragtay maslaxadii iyo wanaagii maalin walba aan wadnay iyo wixii iyaga aad moodaa inay arrintii faraha ka sii baxayso Soomaalina waxaan rabnaa iyo ummadda dariska iyo intii kale ay qusayso arrintaas waxaan rabnaa in hadii laga hortago oo maslaxadii iyo walaalnimadii iyo wixii awal lahaan jiray ummadda lagu soo celiyo haddii kale hadii waxay tagaysaa meel xun aad moodo inay ku sii socoto waxa ku sii wado oo godka ku sii shubayana waa maamulka iyo ninka sheeganaya madaxweynaha Jubbaland ka ahay arrintaas arrin carada taalo hadii intaas aan idin sheegaynaa Soomaali weyn waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.